هذه بيها Dhuusamareeb aad u sii cabaan naxariistooda soo badanaysa sida caawa halkan ka muuqata maamulka iyo shacabka dawladda Soomaaliyeed ama maamulka iyo shacabka dawlad goboleed kamid ah dhulka Soomaaliyeed marka ay midoobaan iskuna tashadaan kana fikiraan inay isu tanaasulaan waxay muujinaysaa in si degdeg ah horumar lagu gaari karo reer Galmudug ayaa taasna iftiimiyay oo idin hambalyeynaya reer Galmudug lix bilood ama sanad ka hor dad badan kuma fikiri karin in Galmudug ay marti geli doonto shir noocan ama inta ay isku iman doonto maadaama lagu fikiri karin waqtigaas waxayna tusaaleynaysaa inaan gaari karno meel maanta aan ku fikiri karin haddii ay ummadda Soomaaliyeed isu timaado shirkii halkan ka socday maalmihii la soo dhaafay waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed inuu ahaa shir ku salaysan isdhegaysi isu tanaasul kulligeen aan ka doodaynay danta dadka Soomaaliyeed marna shirkani ma aanay ka soo muuqan wax dhib ah inkastoo dadku ay walwalsanaayeen wixii ka soo baxayna waxaad ku aragteen warmutiyeedka iyadoo bilow la isuguna soo laaban doono Dhuusamareeb si loo dhammaystiro xaaladda dalku maanta uu ku sugan yahay ayaa qof walba waajib uga dhigaysa inaan gacmaha isqabsano wada shaqayno ka saarna marxaladda dalkeena uu ku jiro si taariikhdu ay noogu xusto inaan nahay kuwii dalka u horseeday midnimo iyo barwaaqo waa bilow waxa halkan la isugu keenay waa bilow shirkani laakiin horumarka maalmaha kooban aan ku gaarnay waxay nagu sii dhiirigelinaysaa inaan dhammaystirno inta noo dhan waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego in dhammaan madaxdii halkan isugu timid oo hormuud ku yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inaan ku heshiinay inaan ka wada shaqeyno sidii dalka aan ku gaarsiin lahayn meesha ummadda Soomaaliyeed ay rabto waxaan kaloo ku heshiinay inaan isdhegaysano weliba marka aan kala aragti duwanahay si aan isugu keenno aragti midaysan oo dalka u sii horseedi karta horumarka dhaqaale amni iyo siyaasadeed oo aan gaarnay 3 sano ee xogaagii aan dalka joogno intaas ka sokow waxaan mar labaad u mahadcelinayaa madaxda iyo shacabka reer Galmudug sida sharafta ay loo soo dhaweeyeen waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan joogitaanka ay la joogaan martida tirada badan ay idinka caawin doonto horumarka iyo dib u dhis